wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada ee dowladda Puntland ayaa maanta dib u beertay geed quwaaxeed 3 bilood ka hor laga qabtay kooxo xaaluf u geysanayay deegaanka gaar ahaan degmada Dangaroyo waxaana lagu beeray mid ka mid ah beeraha ku yaala degmadaasi iyadoo beeraleydana loo qaybiyay geed quwaaxeedkan kooxahan xaalufka deegaanka u geysanayay ayaa qaar ka mid ah waxay ku jiraan gacanta dowladda Puntland wafdi uu hogaaminayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka ahna kusimaha wasiirka Mukhtaar Cabdisalaam Suleymaan ayna ka mid ahaayeen wasiiru dowlaha wasaaradda tamarta macdanta iyo biyaha gudoomiyaha gobolka Nugaal taliyaha qaybta booliska ee gobolka Nugaal iyo xeer ilaaliyaha guud ee dowladda Puntland ayaa gaaray degmada Dangaroyo waxaana ay bulshada la qaateen kulamo kor loogu qaadayo ilaalinta deegaanka ujeedka loo joogaa waxay tahay dhir muddo dhacday in miidiyaha laga maqlay dhirtaas oo ilaa dhowr kun oo geed ah dad caadeystayaal ah oo dhirta jara oo kontrabaanistayaal ahna ay jareen lana soo qabtay iyagoo weli ayan u suurtoobin inay meelaha rabeen inay u qaadaan ay gaarsiiyaan haddana ku xiran xabsiga weyn ee dowladda Puntland lana rabo in la maxkamadiyo mar dhow dhirtaas hadda 3 bilood iyo muddo ka badan oo layd ayaa maanta halka kan la keenay waxa mulkiilaha beerta tan Cabdulqaadir Saciid Cabdiraxmaan oo ah gudoomiyaha hore degmada Dangaroyo hadeerna ah isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee degmada Dangaroyo oo beerta tan le waxa lagu wareejiyay dhirtii qayb ka mid ah xeer ilaaliyaha guud ee dowladda Puntland Maxamuud Xasan oo Cismaan iyo taliyaha qaybta gobolka Nugaal Xuseen Cali Maxamuud oo ka hadlay mid ka mid ah kulamadii ay mas'uuliyiintu la qaateen reer Dangaroyo ayaa ka waramay muhiimadda ay dhirtu leedahay geedku cilmiga biology-ga ah wuxuu soo daayaa wax la yiraahdo oxygen maxay tahay waa neefta aynu qaadano bini'aadamku qaato wuxuuna qaataa carbon inaguna carbon baan siideynaa meeshii dhir taalo waxaa jirta nolol meeshaan dhir oolayna nolol ma jirto maxaa saxaraha loogu loonala waayo dhir ma leh oxygen wax soo deynaya ma leh wixii kale faa'iido waa la yaqaan baa la marnaya miro laga gurto iyo laamo laga goostay wax soo dhirto ka wada yaqaan laakiin neefta tan aan qaadanayno oo bini'aadamku qaadanayo oxygen-ka la yiraahdo waxaa soo daaya dhirtaa soo deysa haddii dhirta la jaro la xaalufiyo oxygen meeshaas waa ka baxaysaa meeshaasuna waxay aakhirku isku bedelaysaa lama degaan Allahu musta'an shariicada islaamku maxay ka qabtaa wala tusidu fil ardi ba'da islaahiha sawayid quraan ma hafasahaadinina dhulka kadib markaanu islaaxinay ilaahay baa yiri adoomiyiisu la hadlayaa halka degan ilaahay baa inoo islaaxiyay buur iyo banaan iyo tog iyo maxawoobi iyo maxaa ku yiraahdaa dhulgeeda la yiro hafasahaadinina marka haddaanu dhirta jarno soo inuu kuma aayadaas inuu qabsan mayso haddii amni jiro nolol baa jirta haddii amni jiro dawladnimo baa jirta haddii amni jiro kala damayn iyo socod baa jira marka waxaan leeyahay odayaasha dhaqanka culimada oo Cabdirasaaq Xaaji Aadan ugu horeeyo hadda diinna waa u fasiray waxa weeye dawladnimada waa u fasiray waxaan u maleynayaa dadka intaas ugu filan dawladnimadu waxay tahay waxaan rabnaa xaalufinta deegaanka meelaha halkaan ugu badan oo waxa weeye wararku ka jireen bay ahayd waxaan rabnaa deegaanka in la ilaaliyo haddii deegaanku uu faraha ka baxo dadku waa dhimanaya dunyaduna waa ka dhimanaysaa laakiin waxaan rabnaa deegaanka in la ilaaliyo waageer waxa la jiray dhuxul baa la gooyaayo geed taagan baa la gubaayo hadda waxa loo soo dhigtay hadda waa arkayseen sanadadii ugu dameeyay in la yiraahdo kabrarada qolo u soo kacdayo qola xagarka guranayso qola waxa weeye salaamcada u kacday waa la soconaa waxaan u baahanahay qof waliba inuu meel iska taago gudoomiyaha gobolka Nugaal Maxamuud Xasan Maxamed Cawil Mataan ayaa uga mahad celiyay maamulka degmada Dangaroyo iyo bulshadeedaba sida wanaagsan ee ay uga hawlgaleen dadkii dhibaatada u geysanayay deegaanka aad baan uga mahad celinaynaa dadka degmada kaalinta uu ka qaatay waxaana shacabka gobolka Nugaal dhammaan ugu baaqaynaa in dhammaan ay ilaashadaan dhirta iyo duurjoogta tuulooyinka gudiyadooda gudoomiyaashooda
gudoomiyaha degmada dhammaantood ee gobolka Nugaal waxaan ugu baaqaynaa inay si feejigan ula socdaan una ilaaliyaan deegaanka cid alla cidii lagu qabtana sharciga la horkeeni doona haddii Rabbi idmo dadka shacabka waa inay iyagu deegaankooda ilaashadaan oo ugaartooda ilaashadaan mar walba wixii siyaado ku aan laamaha amniga ay soo gudbiyaan aad baan ugu mahadcelinaynaa degmada qaabka wada shaqaynta ay iyada shacabkeeda isugu xiran yihiin wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada ee dowladda Puntland ahna kusimaha wasiirka Mukhtaar Cabdisalaan Suleymaan ayaa sheegay in ka wasaaradahan ay dib u beerayaan dhammaan dhir quwaaxeedkii ay soo qabteen laamaha ammaanka iyo bulshada waxaana uu guud ahaan bulshada reer Puntland ugu baaqay inay ka feejignaadaan kooxahan qowlaysatada ah isla markaana dhibaatada u geysanaya deegaanka dhirtan aad u jeedaan oo ah kabraro oo muddo 3 bilood ka hor lagu qabtay niman qowlaysata ah oo la yiri waa ka ganacsanayeen oo dhoofay wadeen sidaad u jeedaan dhirtan waxay u baahan yihiin xanaanayn 3 bilood ay gaareen cimrigoodu wali waa jira sababta aan maanta ugu beerayno beertan ama goobtan biyuhu ay ka dhow yihiin waa sidii loogu heli lahaa biyo dhow maadaama ay dhirtan ku baxdo cimilada roobka iyo biyaha roobka oo roobkii dayrta ee guguna ka daahay si ay u noqoto ilaalinta deegaanka iyo bilicda yaan maanta halka u keenay waxay ahaayeen 11 jawaan jawaano 200 gaaraya oo dhirtaas ay ku jiro 200 xabo waxaan u rarnay oo lagu beerayaa beerta Nabadoon Daahir Sanweylood oo ah beer ay wasaaraddu leedahay laakiin Daahir uu gacanta ku hayo oo ku taala deegaanka Salaama Maxamed Saciid Qoslaaye warbaahinta dowladda Puntland Garowe.